kadib markii la dilay hogaamiyaha sare ee dalka Iran Ayatollah Khamenei waxaa bilownay hadallo badan oo ka imaanaya Mareykanka iyo Israa'iil kuwaasoo fariin u diray shacabka Iran iyagoo leh warkaco oo wadanka qabsada. To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. This is the moment for action. Do not let it pass. laakiinse sida ma aysan dhicin. Geerida Ayatollah Khamenei waxa ay noqotay mid midaysay bulshada dalka Iran. maalinta wixii ka dambeeyay Iran waxa ay bilowday weerar aad u xoogan oo gabi ahaan noqday mid si weyn loo hadalhayo. haddii aan dib u eegno sanadkii 2003 markii dalka Ciraaq la weeraray, mid ka mid ah waxyaabihii u fududeeyay Mareykanka waxay ahayd in shacabka aysan lahayn aqoon ku filan ay ku badbaadin karaan dalkooda. sidoo kale dalalka Liibiya, Soomaaliya iyo wadamo badan oo Carab ah waxa ay noqdeen tusaalooyin muujinaya sida aqoon darrada bulshada ay halis weyn ugu noqon karto jiritaankooda. dalka Iran inkastoo laga xoog badan yahay ama laga dhaqaale badan yahay, haddana waa dowladda kaliya Islaami ah oo si toos ula dagaalanto reer galbeedka iyo Yuhuudda. taasi uguma aysan suurtagelin in ay leeyihiin hub aad u badan ee waxa ay kaga duwan yihiin wadamada kale ee Islaamiga ah waa wadan bulshadiisu aqoon leedahay. marka dalka bulshadiisu aqoon leedahay waxa ay noqdaan difaac ugu adag oo dalku leeyahay. dagaalka hadda ka socda bariga dhexe waxa uu dunida baray cashiro aad u badan, qaasatan Soomaali hadaynu nahay waxa uu inoo yahay cashir aad muhiim u ah maadaama dalkeenu uu ku burburay waxbarashada bulshada oo aad u hooseysa. waxbartaan barwaaqo gaarane